daawanayay laba dhacdaba wax ka soo qaad bay lahaayeen aadna waan wax mahay waxaan maqlay madaxweynihii cusbaa oo tababar uga furay hudheel halkaa ku yaal magaalada galbeedkeeda wasiiradii cusbaa waxa kaloon maqlay madaxweynaha oo qada sharafeed ku maamusay wasiiradii hore laba madaxweyne oo laba munaasabadood midna goobjoog ahaa midna aanu goobjoog ahayn mid Muuse Biixi baa joogay oo waa loo wada dhamaa waynu arkaynay middan kale ninkii hadalka furay wuxuu yidhi anigoo madaxweynaha ka wakiila madaxweynuhu wuxuu martiqaadka u fidiyey malaa ugu yaraan ilaa 4 goor ayuu ereyga madaxweyne ku celiyey taasina waxay la muuqataa inay tahay intihaak على سيادة الرئيسين كي هراء يكن دنبابا وحوي أحمد محمد محمود سيرانيو هالجودا جي صاحب كي مهما حويناه جمهورية سومالان وكذا العي وهانشري وحقود العي مدحوينه هراء جمهورية سومالان وسدح مرحلات مروى مرشح مروى مدحوينه هراء ودرت له قالوي قف كليا ودن كيستو ظاهر ريالوها وكيل بعد Muuse Biixi iyo Axmed marka la isaga dhigo Axmed baa sareeyo oo Axmed waa ninka saddex marxaladood ka soo gudbay Muuse tii labaad buu ku jiraa markaynu u soo noqono qadadii waxa la yiri wasiiradii hore oo qadeynaya tiraba waa dhowr jeer intuu ereygaas aan maqlaya waxaan maqlay madaxweynaha oo shirkii ugu dambeeyay golaha wasiirada qabtay madaxweynaha oo sii sagootiyay wasiiradiisii hore waxaan maqlayaa madaxweynaha oo qada u fidiyay wasiiradii hore aniga waxay la tahay madaxweynuhu ilayn xil wareejin buu sameeyay oo isagoo miirkiisa iyo maankiisa qaba ayuu xilkii saacada laga bilaabo waxaan ku wareejiyay madaxweynaha cusub ee la doortay dabeedna kol hadduu isaguna tagay iyaguna way tageen hadalladan meesha ka maqlayay waxaan maqlayay qabo oo leh waa inaynu isku duubnaanaa waa inaynu isku xidhnaanaa waa inaynu waxaan maqlayay mid kale oo lahaa qoladiina isaaq walba wax xishoonaysane madaxweynuhu waa inuu inoo yeedhaa inoo yimaadaa anu garan maayo dhaqankaas meelu ka jiro marka erey kaftana Cabdilaahi Dheera yidhi oo Cabdilaahi Dheera wuxuu ka kaftamay inna kaamil koodhskii waa loo yeedhayaa ma la laha ingiriisku kaamil koodhka intuu qoryi ka dhigay laba bilood oo mushaharaysiisay sidoo Cabdilaahi sheegay ayuu waa leedin yeedhi doonaa kala taga أنا مقابل أحمد سيرين Muuse Biixi إنه سيراني كوي قلادن أنتوا أبغى المريسي والذين يريدون أيه كلا تجا وحي سجان أنا ما قرني حلكي ودا ماذي هدي دلالكي بدناي أي سميين أنت أي حلك هيين هدي أي نوجود دريان إن إمكان ينوفران شبه هذا وسيردي شبي شوب هذا ينوفريان وده تاجي اعتراف كأنه سود الدشينيسو وين هادنا قينا هدي كلا waxaanu leenahay madaxweynuhu maalintii ugu dambeysay xilka wareejiyay waxa ugu dambeysay isagoo lugeynaya oo gurigiisa ku sii socda oo ay dadkuna hareer socdaan fariin bay ahayd anagu si aan u akhrinay fariin toban bay ahayd waxa weeye xilkii waan wareejiyay meeshina waan ka tagay waaniga ka lugeeyay aanoo farmarin baan ka tagay saasaan u qaadanay haddii madaxweynuhu sidaas sameeyay ha akhriyaan oo si aan u akhriyay iska fiican ha u akhriyaan xilkii uu dhamaaday saasaan ku dhamaaday sabab la isu urursadana